Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada warbixinteena maanta iyo warka aan hadda doono maanta idaacadda dunida ka jirto iyo diyaarada dunida ka dhacayo. Ciidamada madaxayaasha ee loo yaqaano guutada Soomaalida ee bariga Ukraine. Haddaba maxaa ka naqaanaa jabhada la magac baxday guutada Soomaalida ee ka tirsan jabhada ka jirta bariga Ukraine ee taageero ka heshay Russia. Madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa ku qadqaaday hadallo oo ka hadlaya dalka gudihiisa. Madaxda sareysa ee dadka sirdoonka u shaqeysa dalkaasi xilli oo madaxweynaha kulan lahaa saraakiisha ugu waaweyn ee dalka Turkiga oo xiriir ganacsi iyo difaac la lahaa. Turkiga loogu baaqay inuu difaaco Russia ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo oo lagu dhameeyo wadahadal iyo sheekaysi. Hadda ma xasuusan kartaa wadanka haddii uu ku dhaco dagaal oo ku dhaco ama Turkiga uu saacido Russia ama Ukraine maxaa dhici doono? Dagaalka koley wuu sii weynaan doonaa, qadkana wuu kasii baxi doonaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa dagaalka inuu booskiisa Ilaahay ku celiyo, dhexdooda Ilaahay biyo qoob ugu dhex shubo. wararka dhimina markaan ani hadla doonaa insha Allah. Kanaalka subscribe saar, like saar, share na ku dhufo sidii oo dhiigina u noqoto halal noocan oo keento ku soo gaaraan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.